مسؤولين بشكل يوم التلقوة بنتي أو أنتم هذه الآية بين بلان من الصومالية أنتم وأنتم لا هذه بين بلان وحمد الله سبحانه وتعالى وليكم مجلس كان بنتي هذه أما أسبوعا كنت له وعلى أسبوع الرياضة وحاب الرياضة بعطي وهي المعركة الصومالية وحصلت الرياضة بعطي كفرتة وحاب بعطي جبوتي مرة على أسبوعا وأسبوع الرياضة بنتي وعبدين أسباني قبل الولاء وهذا مستحفرا وهذا البلان بلان وعملت العيد إلى أنقبول إلى الميراء ما دال أي نوع معركة بليان باليراء رياضة إذن معركتي باليراء رياضي أن كمل بالنا وأن قدر له وأن معركتي دكتورنا ومعركتي هرمركنا أن كسبنا ما دال رياضي إن أنا مركز معركتي رياضة باليراء معركتي مدير الجبرانة runtii xadimida dibdibbac oo maaragtay u dhacay dhibaatooyin fara badan ee dagaalada waxay dhaceen hadda waxaad u moodaa in maaragtay Soomaaliya ay soo qabsanayso dowladnimadii iyo maaragtay wanaagii iyo nidaamkii iyo wanaagii maaragtay hadda la dareemayo waxaa la rabaa marka dhalinyaradu inay arrintaas maaragtay u istaagaan in maaragtay ay ka mara dhaliyaan xorriyadii ayaga midooda oo dhalinyarada ay keeneen wiilasheedii in maaragtay ay gurtaan ayna markaa ku dadaalaan horumarka iyo maaragtay sidii wanaagga dhan walba uu yahay ay maaragtay u wanaagdhalin lahaayeen Somalia,
Soomaali baa fiirsaday midka maanta keliya ee dowladda maayaga xorriyadda Soomaaliya waxaa loo soo maray waqtigeeda waxaa loo soo maray dagaal iyo halgankeeda maskax iyo dhiig inta ku baxay marka laga soo tago dhalinyarada Soomaaliyeed sida tiknikaalka u abaabulay shaqada inta ku badan qabatay waxaa jiray dad badan oo ka qayb qaatay Soomaaliya oo ugu horreeyay gabayadii Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Xasan oo aan ognahay inuu ahay nin wadaaya oo dalkan dhiig ku soo gaashay inuu xildhibada qaato waxay ka mid tahay sababaha isku weeyay inay xildhibada dalka soo dejiyaan dhiigga Soomaaliya ka ahay waxaa jiray hogaamo diimeedyo culamo ah mashaariic ah oo u dhiibaysan alkaasi magaalooyinka oo lahay dalka lagu talaalo waxaa ognahay Soomaaliya waa muslim waxay ka mid tahay dalal waa halka dalka keliya oo soo maray taariikhda aanadooyin astaamo diiniyo oo ku shaqaysan jireen waana waxay cilmiga waxay u baahan yihiin wadaadada iska xusuusto malaa'ikta Soomaaliya ee ka dambeeya dalka Soomaaliya maanta wuxuu joogaa meel ka soo qabsanayo ama aan dhihi karno wuxuu gaarayaa miliyadii ku daaday oo calankii iyo waxa waaye deegaanka Soomaaliya maanta ay leedahay dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dalka Soomaaliyeed ee ilaalinaya calanka gumaysiga ee waxa waaye kiisa taageer ay maanta ku noolaanaya xalay ku sugan yihiin ee ka filaasho ee dalka Soomaaliyeed gaaro waan jeclaanahay inay muusiga noo kaariyaan waxaan rabnaa anaga guud ahaan asbuucan oo lagu leeyahay waxaan lagu leeyahay waxaan ka meenahay dadka Soomaaliya sababta u ahay inay xubnimada gaarto dhalinyarada Soomaaliyeed u badnaayeen dhalinyarada awoodda ka dagaalada u badnaayeen waxaan rabnaa haddii ilaahay gaaro inaan ka hambalyeeyno oo aan badbaadin ka bixino dalka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo mar walba ku ammaanan doonka ay soo qaateen inay maanta u istaagaan horumarinta dalkan iyo inuu sharciga iyo qaanuunka dalka ku shaqeeyo dalku waxay xor ku ahaan karaa inuu leeyahay nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo ninka la yidhaahdo oo jiro degmada Kurceel oo maamulka u jiro maalmaha ay jiro xabdiga oo jiro laga dareemayo dhaqdhaqaaq bulsho oo si furan waxaan rajaynayaa in bulshada deegaanka si fiican uga shaqeyso anaa maasrada ka faa'iidaysanaya waxaana suurtagala dalkii lixdan sano xorta ahay oo qabiilka iyo ka xorowday gumaysiga ka xorowday Soomaaliya qabyaalada waxaa keenay bayaani in gumaysan jira ayaa keenay inuu xilliga ku jiray ahliga sandaruurta waxaan aad iyo aad u dhaxunahay in galmudug ka ciidan maanta dagaalada ka socdaan in dhiig qabiil ku daadanayo in wiilasha Soomaaliyeed ee galmudug deegaankan galmudug ka soo jeeda isdilaya aad u dhaxunahay waxaan rabnaa inaan baaqna u dhow anagoo ka hadlayo afka bulshada galmudug ka hadlayo raacida iyo taageerada ku taagan calan buurada qanaanka leh dadka walaalaha oo ku diraya inay guryaha joojiyaan ninka la yidhaahdo dadka walaalaha oo guryaha ay ka warqeeyaan inay waxaan waxba uga soo dhacaynin inuu dhiig walaala oo gasho ninka la yidhaahdo xilliga ugu mashquulsanaadaan waa ku